Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Kareem. Soo dhawaada asxaabta. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka, subscribe inoo saar, gambaleelka furo si aad ula socoto casharo ku saabsan barashada luqadda Ingiriiska. Casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay love history, sheeko jacayl ah. Love history, sheeko jacayl ah. ciwaankeeda waxaa la yiraahdaa Please don't deceive me. Fadlan hay khiyaamin. Please don't deceive me. Fadlan hay khiyaamin. Part 1. qaybteedii koowaad ayaynu qaadan doonaa. Aisha and Ali were classmates. Aisha iyo Ali waxay ahaayeen isku fasal, but no same condition. laakiin isku xaalad may ahayn. Aisha waxay ka soo jeeday high class family. qoys ladan ayay ka soo jeeday because maxaa yeelay her father aabaheed was famous businessman. waxa uu ahaa nin ganacsada ah oo caan ah who had a lot of property, kaasoo haystay hanti badan. Ali wuxuu ka soo jeeday low class family, qoys danyar ah because maxaa yeelay his parents waalidadii lived waxay ku noolaayeen in the bush, buul bay ku noolaayeen. He lived with wuxuu la noolaa his uncle adeerkii who had a lot of children, kaasoo haystay caruur badan. And lived wuxuuna ku noolaa adeerkii from hand to mouth, wixii lasoo helaba waa la cunayay. Ali's uncle, Ali adeerkii had wuxuu lahaa small shop, dukaan yar, and he could not pay, muu bixin karaynin school fee, lacagta dugsiga. But laakiinse Ali wuxuu ahaa very clever student, arday aad u xariif ah, and always got badanaa wuxuu keeni jiray high marks, buundooyin sareysa in the exam, imtixaanka. Aisha waxay ka naxday about this young boy's circumstances, duruufta haysata wiilkan yar, and decided waxay go'aansatay to help him, inay caawiso isaga. She brought gifts to him, hadiyado ayay u keeni jirtay isaga, especially ay ka mid yihiin clothes, dhar, shoes, kabo, and learning materials, iyo agab waxbarasho. Every time, mar walba way u keeni jirtay. And said to him, waxaanay ku odhan jirtay, Ali, this is a present for you. tani waa hadiyadaadii. Hold them, qabso. She also paid, sidoo kale waxay ka bixin jirtay his school fee, lacagta dugsiga. Ali quickly became, Ali si dhaqso badan wuxuu ku noqday shining, qof ifaya, and more smart, aadna uga xarago badan than the other boys in the class, wiilasha kale galaaska la dhigta. When Aisha's friend, markii Aisha saaxiibadeed called la odhan jiray Sarah, asked ay weydiisay, why you helped the boy, maxaad u caawinaysaa wiilka Aishay? Aisha answered, Aisha waxay ku jawaabtay, I wanna make him a man, waxaan doonayaa inaan ka dhigo nin. Sarah, how, sidee baad uga dhigaysaa? Aisha waxay ku jawaabtay, he has good hope, wuxuu leeyahay rajo wanaagsan, but laakiinse he has no money,
lacag ma haysto, soo sidaa daraaddeed my money makes a man, lacagtayda ninka dhigaysa. Sarah said, Sarah waxay tiri, do you love him? Miyaad jeceshahay isaga? Aisha waxay tiri, it is too early now, waad la soo dhaqsatay. macnaha xilli horaad isoo weydiisay su-aasha. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada iyo dhegeysiga sheekadan. la soco casharada kale insha allah, asxaabtaada kale la sii sheer garee, like ta saar. aad baad u mahadsan tahay.